reer Muqdisho ogeysiinaya in aan ku jirin showga Qamar Suugaani. asxaabta qaaliga muuqaal cusub muuqaalkan oo aan heli doono ninka loo yaqaano Qamar Suugaani sidoo kale Dayaxtan Murshe. Qamar Suugaani ayaa ogtiin maalmihii u dambeeyay inuu soo dhigsanaa boor uu ninkan show ku dhigayo magaalada Muqdisho gaar ahaan hotelka Ilad saaran xeebta Lido. ninka lagu magacaabo Qamar Suugaani ayaa ka codsaday dhammaan fanaaniinta Muqdisho dhammaantood inay kasoo qayb galaan isla markaana ay u kala kiciyaan isla markaana fanaan walba oo deegaankaas jooga isla markaana fanaan markuu imaado waa in uu kasoo muuqdo showgiisa si ninkan uu showgiisa dhaqaalahana uu soo xareynayo uga qayb qaataan maadaama ninka showga meesha ku qabsanaya uu yahay nin oo ka imaaday banaanka gaar ahaan Hargeysa ka imaaday asagoo magaalada aan markaas ninku aan dhexdeeda kasoo kici tabin. waxaa lagu yaqaanaa fanaaniinta Muqdisho inay u kala kiciyaan fanaankii ugu yimaada Muqdisho balse Qamar Suugaani ayaa waxa uu showgiisa Muqdisho ku casuumay dhammaan fanaaniinta Muqdisho jooga balse arrinta la yaab kale ayaa waxay tahay ninka Dayaxtan Murshe inuu kusoo qoray Facebooka dhammaan waa salaamaya isoo kale bulshooyinka waxaan Soomaaliyeed reer Muqdisho ogeysiinaya in aan ku jirin showga Qamar Suugaani la igu daray oo aan si aan maalintaas leeyahay isla markaana si aan looga fiirsan loogu daray sawirkii loo soo dhajiyay fanaaniinta ka qayb galaya showgaasna aniga aan ku jiro gaar ahaan sawirkii ku jiro isla markaana aan laga iman in la igu daro balse Qamar Suugaani u soo jawaab wuxuu Dayaxo adaa shalay bari isla markaana dhahay igu dar showga marka arrintan isqabqabsiga ayaa taala faraha bulshada gaar ahaan Facebooka balse waxa u muuqata showga Qamar Suugaani wuxuu u muuqdaa showga baaqday kii ka dhacay ku qabsay alfanaan Maxamed Said BK magaalada Nairobi. marka waxaa lagu yaqaanaa fanaanka Dayaxtan Murshe inuu ahaa fanaan soo gacan qabtay fanaaniin badan oo magaalada Muqdisho looga banaday in ay ku yeeshaan ku qabsanaan show fanaaniintii ay ka mid ahaayeen uu hogaaminayay fanaanka reer Yemen lagu magacaabo balse hadda Saal Carab ayuu ahaa ninkan inuu showgiisa gacan qabtay marka iyo barwaaqo qalanjo ay ahayd markuu ninkan gacan qabtay inay show ku qabsadaan magaalada Muqdisho taas oo fanaaniin badan ay ka soo horjeesteen inay showgaas u qabsadaan balse xaaladdu hadda waxay taagan tahay Qamar Suugaani oo kasoo kacay timir Hargeysa sababta showgiisa uga qayb gali waayay Dayaxtan Murshe waxay ku abuuraysaa fanaaniinta kale Muqdisho loogu soo martin doono waxaa la leeyahay fanaan Dayaxtan Murshe waa lagu soo martin doonaa magaalada Muqdisho balse ta dhigtay ay abuuri doontaa baagaroona dambe isla markaana ayadamba ay noqon doontaa muuqaalkan hadduu ku xisigay like saar waxay kasoo kordhaa isqabqabsigan showga Qamar Suugaani ka dhacay magaalada Muqdisho oo ku soo daado waan la socodsiin doonaa.